sheeko yaroo gaaban oo ka sheekaynayo wiil fasalka lixaad dhigtaa oo magaciisa la yiraahdo Guule wuxuu yiri waa maalin Arbaca ah waa subax 7 iyo barkii hooyada yaa noo soo gashay aniga iyo walaalkay Geedi qolkay iyadoo hiiraagsan markaasay tiri hooyo waa daahdeen ka kaca waa daahdeen xalay saacadii baa yahay weydo waan daahnay ka kaca alla shaqadii baan u cararayaa markaasay tiri hooyo waa riya macaan baa u socotay wiilka hooyo waa diga kala goysay riyadii baa diga kala goysay waxa wada ciyaarayay Inter iyo Chelsea baa wada ciyaarayay Zlatan baa gool dhalinayay marka hooyo waa diga kala goysay waxay ma ku cishan karaa bal inay soo noqoto riyadaydii hooyo waxaad ka sheekaynaysaa maxay tahay anna waan daahay idina waa daahdeen ka kacooyo wuxuu yiri intay qolkii gabdhaha ku jirtay gabdhihii soo kicinaysay baan kacay oo isla gabdho hadda musqusha kaaga hormaraan waa sii raagi markaasaan wuxuu yiri musqushii galay waxaan isku dayay inaan cadaydo laakiin waa ka gaari waayay wajigaan dhaqday waxaan ku soo noqday quraacdii hooyada iyo quraac noo diyaarisay baan cunay qolkayagii baan soo galay oo waxaan labistay dharkii shalay aan isboortiga ku ciyaaray hadday hooyaday ogaan lahayd igama ay yeesheen laakiin intay gabdhaha iyo kuwa iga yaryar ku mashquulsanayd baan labistay dharkii aan shalay kubadda ku ciyaaray shalay galabna markaan soo hoyday ma aanan qabaysanin hooyaday shaqay ku maqnay waan labistay orod baan albaabka kaga baxay qabtii albaabkuga hooyaday ku heshay dariishaday furtay hooyaday bilan markaasay tiri hooyo ma feeratay ha hooyo waa feedhay hooyo kareem ma marsatay ha hooyo waan marsaday xataa cadaygu waan ilaaway iska dhaaf feerasho iyo kareem waan orday fasalkii oo 20 daqiiqo layga horgalay iyaan albaabka soo galay markaasaan si yaroo hoose u iri barayga raali ah waan soo daahay xisaab u sharaxaysaan uga kala go'in buu yiri kursigayga inta farta igu tilmaamay fariiso halkaas meeshii baan fariistay booqii xisaabtan la soo baxo waxaan isku dayay inaan la qabsado xisaabta socota ha sheegin waa xisaab mas'ala ah oo macallinku sharaxayo daqiiqad yar kadib baan saaxiibkay tamay inaan weydiiyo ilaahdo warbaleesha iga aamusdoon hayga kala goynina xisaab ma la socdaay idlaan hay wali wax yar kadib baa waxaan dareemay saaxiibkayo siyar iga siisaqaya waar saaxiib baa wada hayleene waa sida xisaabta mid iga soo horjeeday oo aad u akhlaaq xun baa yiri waxba uraya ilaa show waan soo dhididay oo waan soo rafaaday darkii shalayna waan xidhanahay aan bixiyo xalayna isku jactaday waxay ugu dheeraatay waqtigii la gali lahaa nasashadii markay soo dhawaatay baan kacay classkan ku dhex warwareegay qalin baan damcay inaan qoro dhowr jeer macallinka garbaha intuu soo qabtay isoo fariisiyo yiri waa la shaqaynayaa fariiso wuxuu damcay inuu masaladii igala shaqeeyo waxaan ku iri waan fahmay anaan wax fahmay wuxuu yiri xiisada inoogu xigta waxaad leedihiin ciyaar marka ogsoonaada ha ka tagina dharkii aad ku bedelan lahaydeen ciyaarta iyo kabihii wuxuu waa soo ilaaway oo masjid ninka ciyaarana waan ogahay waa nin aad iyo aad u dhib badan intuu igu qaynin lahaa waxaan isku riday jiro waxaan u tagay macallinkii Erikson oo koodi waan xanuunsanayaa maanta ma gali kara xiisadaas markaas uu arday fiican baad ahay sawirada lagu daydo ee wanaagsan baad ahay maanta waad iska bixi kartaa waxaan moodayaa inaan furiyo guriga wato inta dhexda si socdo baan yiri away abaha uu ku jeclaa kubadda markaa tagayso uu ku qaadi jiray wax ka soo baxdo weel away abaha xaqu ka baxay sanadahan 4 sanadood ismaanana lagu abahay sabab ay aabay hooyaday ku kala maqan yihiin hooyaday waxay noo sheegtaa oo kaliya inuu London Ingiriis ka degan yahay anaguna isku baan ku nool wuxuu yiraahdo hiifaya aabahay waan soo socday albaabkii markaan imid baan moodaya inaan furihi wado furaba mood albaabkii baan si xun laag ugu dhuftay oo hortiisa isku tuuray anigoo daalana albaabkayga isku hor fadhiya baan shanqar maqlay albaabkii baa la furay yaa albaabkayga furay waa aabahay oo aanan sarag 4 sanadood saacadaha yare kooban farxadda iyo dhibta ilmaha u kulantay dulucda erayada waxaan soo qaatay waad garanaysaa sheekada guuleed aniga iiga sheekeeyay oo macallinkiisii afka hooyaa uu iiga sheekeeyay dhibta haysata haweenka haysata
aan dib ugu noqdo xoogaa si baan noqday laakiin dib aan ugu noqdo